lacagtaas account gaari ku jirtaa waa la hayaa warka dhaqra wadin sheegana waa been wada socodkii dawladnimada iyo intii dalkaad ku sugnayd xisbiyada mucaaradka concern ama waxay ka qabeen aragti ah in madaxweyne Daahir Yaale Kaahin xagga xukuumadda uu jiro ma isleedahay hadalkan cirra boorama ka yiri daraankii ay ka qabeen bay soo bandhigaysaa horta waxaan aad ula yaabay ninka kursiga ugu sarreeya oo tartamay inuu sheekayo oo ka qosqosis dadkii u soo ururay oo been ah inuu dadka la hor yimaado aad baan uga xumaa xukuumadda in la ogoleysiyo inay doorashada qabataan ayuu ka shaqeynay anigu saddex waa sheegay xisbiga inaan ka midahay bismillaahir rahmaanir rahiim nabadda odayaal kulanti wanaagsan halkani waa Home Cable TV xarunta warqabadka ee magaalada Hargeysa aniguna waxaan ahay Hoori Axmed Hoori khadka telefoonka ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ee magaalada Dubai waxa ku jira madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland Daahir Yaale Kaahin oo haatan Home Cable TV la soo xiriiray madaxweyne Daahir Yaale Kaahin madaxweynihii hore Soomaaliland madaxweyne soo dhawow maxaa cusub oo ummadda Soomaaliland ee shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad la wadaagaysaa oo aad Home Cable TV la soo xiriiray horta waa salaamaya shacabka Soomaaliland guud ahaan nabad iyo horumar baan ka jeedinayaa waay waxaan jecelahay qodob kooban inaan ka hadlo shalayto musharaxii wadani ee Cirro boorama ayuu ka hadlay wuxuu sheegay war ka duwan warkii adigu markii awdalan tagay war ka duwan waay oo been abuur abuu ka sheegay halkaa waay oo aan garanayn maaragtay inuu dhallinyaradii soo ururaysay beenta kaga xusuusinay beentaasi wuxuu yidhi 1 milyan baa saxaafadda la hordhigay xukuumadda ay hordhigtay 1 milyan ma jiro waxaan kaas ugu qaaday waay awdal markaan tagay aniga warqad aan sido waxgaras labeetii ree awdal ayaan la shiray wamiiriyahay ku jirtaa waa loogyahay waxaan u sheegay dekedan waayo oo muddo badan ay daba socdeen inaan madaxweynaha ka soo dhameeyey 1 milyan oo contribution ah oo dhismaha degmada dekedan waayo laga qayb galay waay arrintaa iyada ah markii aan soo noqday lacagtii xukuumadda waan ka wareejay wasaaraddu waan ka wareejay xisaabiyaha guud uu saxay bangiga account khaas ah oo horumarinta dekedan waayaha ayaan ku shubay oo anigu mas'uuliyadiisa gacanta ku hayo waay olihii ganacsatadii ee lacagta ururinaysayna waanu ka wada soconnaa oo hadduu ilaahay yidhaahdo markay farsamo ahaan arrinta la soo ururiyo dekedii waa la bilaabayaa marka horta waxaan aad ula yaabay ninka kursiga ugu sarreeya oo tartamay inuu sheekayo oo ka qosqosis dadkii u soo ururay oo been ah inuu dadka la hor yimaado aad baan uga xumaa waay waa labaade ma ahin contribution ugu horeeyay xukuumaddu deked la dhisaya ku bixiso waay maydna waa lagu bixiyey tanna waa la mid oo waddankay ka mid tahay muhayana in lagu bixiyo waa daruuri waay marka waxa baska gaara oo uga samaynayo muhayan lacagta lagu bixiyey ma aan garan oo taas waa mid waay waa talabaad anigu berigii dhawada dalka yimid hiil baan u yimid si aan u furfuro murankii doorashada oo aan u heshiisiyo xisbiyadii taana waa la wadaogyahay Somaliland oo gabdhaha waana arrintaasina waa samaanta inoo suuga gelisay inay doorashadu wadadeedii haysato oo ay si fiican u socoto Soomaalidu waxa ku maamaadaa doqon isaaftan caafir loogu rogay galad ma muuto waxaan aad uga yaabanahay anoo hawlahaas oo dhan qabtay oo hawlahaas oo dhan kala soo dabaashay waxa aniga iyo wuxuu isku aniga iyo inaan kaga taano xisbiga kulmiya loo tartamayo waa nasiib dafo oo ka dhigo sheekayo oo dadka ku qosbay yani waa nasiib dafooyinka jira waxa weeye nin u socda kursiga ugu sarreeyay oo been qaawan dadka la hormarayana waa oo raqiisa oo waxa laga yaabo
arrintaasaa rabaa ree awdal lacagtaas account gaaray ku jirtaa waa la hayaa warka dheer oo idiin sheegayna waa been kaan idiin sheegay baa rasmiya wayna bilaabi doontaa warkaasaan rabay inaan gudbiyo oo beenta dadka lagu khawaysiinayo ay meesha ka baxdo de madaxweyne waxa la ogaa adigoo ganacsatada sidaad adiguba hore u soo sheegtay ree awdal iyo labeenta la kulmay dekedana ballan qaaday inaad adigu odaynimo iyo madaxweyne ahaan iyo deegaankaas ka soo jeedo aad xilkeega qaaday oo saartay in meesha horta deked laga asteeyo oo lacag wixii ku baxaysa waxaad caalamka raadsiyo waxaad imika sidii aad sheegtay aad hayso akoon ku shubtay iyo tu ganacsatada aad kaga ururinayso bulshada ree awdal aad imika fariinta u dirayso maxaad u sheegaysaa waqtima iyo goormaad leedahay lug hayo waa la bilaabaya waxaan u sheegayaa sida ugu dhaqso badan hadduu ilaahay yidhaahdo waa la bilaabayaa dekedaasna ka hari mayno anna waan daba soconayaa meel kastoo ila gaadhana dekedaa waan hirgelinaya waa ku abshiraan baan leh yaana beenna yaana wax lagaga raadsan reeawga madaxweyne waa adiguna sheegay garwadeen baad ka ahayd wadahadaladoodii dalkuna waa adiga sheegay inuu ku badbaaday markii dambe wada socodkii dowladnimada iyo intii dalkaad ku sugnayd xisbiyada mucaaradka concern ama waxay ka qabeen aragti ah in madaxweyne daahir yaala ka hayn xagga xukuumadda uu jiro ma isleedahay hadalkan cira boore ma ka yidhi daraankii ay kaa qabeen unbay soo bandhigaysaa meesaasi waa suuragal maahay cidda la rabay in la ogoleysiiyey ay xukuumadda ahayd iyo kuwa kuwii bannaanka joogay xukuumadda in la ogoleysiiyo inay doorashada qabataan anigu ka shaqaynay anigu sadee waan sheegay xisbigana inaanan ka mid ahayn iminkana waan sheegay xisbiga ka mid ahay midaan taageersanay midna ma jiro markaa nina yuunan aniga igula xuqun nin waxba isagu aan kiisa buuxin karayn yuunan meelo kale igula xuqun aad iyo aad buu mahadsan yahay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan daahir yaala kaahin oo hataa si toosa ula hadlayay telefishinka home cable isagoo sidaa uu sheegay ka jawaabayay hadal murashaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga mucaaradka wadani magaalada boorama dadkii kusoo dhaweeyay ugu jeediyey madaxweynuhu dekeda lughayo hore siduu u sheegay isaga ayaa hawsheeda iyo bilowgeega iyo in halkaa deked laga asteeya gacanta ku haya daahir yaala kaahin madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay madaxweyne